halkan waa mid ka mid ah salaxyada ku yaala magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafadda Caalanley markii aan salaxa soo gaarnay ayaan la kulannay daayar aad u qurux badan oo ciyaaraysa kubadda cagta oo waliba kordhinaya xirfadooda kubadda cagta waa mid ka mid ah garoomada yaryar ee kubadda cagta lagu dheelo kuna yaala qaybo badan oo ka mid ah magaalada Kismaayo markii aan soo gaarnay garoonkan waxay indhahayagu qabteen daayar mustaqbal leh kuna hardamaya xilligan oo ah xilli habeen kubadda cagta kubadda cagtu waxay ka mid tahay waxyaabaha kobcisa jirka bini'aadamka marka laga hadlayo xagga jirdhiska iyo waliba kobcinta maskaxda hadda soo koraysa kuwani waa kuwa rajo wanaagsan ka qaba in ay ka dhabeeyaan himiladooda ah in ay kubadda cagta ay darajo wanaagsan ka gaaraan mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan ee aan daawaday ay ahayd midii xalay ay ciyaarayeen daayartani waxay ka bandhig qurux badnaayeen ciyaartooyda muddada fog ku soo dhex jiray kubadda cagta sida ay iskula jaanqaadayeen labada kooxoodba ciyaartu waxay ahayd mid si habsani leh uga socotay balse markii aad fiiriso aad u maleynaysay in ay ciyaarayaan kooxaha koobaad ee Jubbaland qaabka wanaagsan iyo sida sharciga kubadda ay u tixgelinayaan daayartani waqtigii loogu talagalay ciyaarta ayaa soo idlaatay waxay ku soo dhamaatay barro gool la'aan ah intaa kadib ayaan ana bilaabay inaan sheeko la wadaago qaar ka mid ah dhalinyarada 10 jirada ah ee ku hawlanaa ciyaarista kubadda cagta dhab ahaan Jubbaland ayaa mid kobac balaaran ka sameynaysa dhanka kubadda cagta Cawil Cabdi Cabdullaahi Labaqeyd Jubbaland TV Kismaayo